wuxuu xusay nabigu calayhi salaatu wasalaam isaga oo ka warramaya istighfaarta iyo dembi dhaafka inuu ilaahay weydiisanayna qiimihiisa inuu yahay hadiyadaha ugu qiimaha badan ee waalidkeennu intii uu dhintay kadib aynu u dirayno xadiid saxiixa abi hurayra uu warinaya rasuulku wuxuu ku yidhi ilaahay baa darajo siiya addoonka mu'minka ah marka uu qabrigu ku jiraa wax loo kordhiyaa darajooyin buu dareemaa kolkaasuu leeyahay yaa rabbi annaa lii haadi ilaahay tan xaggeen ka helay kadibna ilaahay wuxuu leeyahay biistighfaari waladika laka ubadkaagii baa dembi dhaaf ilaahay kuu soo weydiiyo hadiyadan sidaasaad ku heshay marka inaynu ilaawna maaha waa samafalka waalidku intuu geeriyooday aynu samafalayno dadka qaarkood halkay cay ka daba diraan qofka waxa waajiba inuu istighfaar ka daba diro istighfaartu shayga la yidhaahdo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa tii uu dadaalay uu waayay hooyadii xadiid saxiixa muslim ku sugan oo macnaha saxiixa ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mida buu soo booqday hooyadii aamine qabrigeedii markaasuu aada u ilmeeyey asxaabtii ag joogtayna way la ilmeeyeen wuxuu idhi waxa iga oohiyey hooyada ilaahay baan idhi aan dembi dhaaf kuu weydiiyo markaasaa falam ya'dan lii ilaahay iima fasixin wuu ii diiday kadibna waxaan weydiistay inaan qabrigeeda soo booqdo waa la ii fasaxay fasuuru lqubuur fa innahaa tudakiru lmowt haddaba xabaalaha soo booqda baan idin leeyahay buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam aakhire idin xusuusinaysaa iyo geerida istighfaartu si ay aqbalka ugu dhowaato hunaaka siyaq erayo lagu dhawaaqayo xul ah ayuu nebigu ina baray calayhi salaatu wasalaam ducooyinka iyo erayada nebiga ka soo arooraana sir gaara way xambaarsan yihin rasuulku waxau uhi man qaala astaqfiru allaha aladii laa ilaaha ilaa hu alxayu alqayuumu waatuubu ilayh qufira lahu wain kaana miman fara min azaxf qofka intaa akhriya ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanayaa alxay noloshiisu daa'imka ahayd wax walba habaynaya isagu waanu noqonayaa ilaahay dembiga iga dhaaf intaa hadduu ku dhawaaqo ilaahay waa ka dhaafayaa dembigii uu galay xataa hadduu yahay dadka ka cararay dagaalkii gaalada la ishayey oo dembi weyn ku dhacay siiqooyinka iyo erayada uu nebigu ina baray calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a marka uu salaada ka baxa 3 jeer buu odhan jiray astaqfirullah 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 اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام واستغفارته وقيمها بضن وعكروا ينوت المامي ذكري وسجنوا بحي سيد الاستغفار هبك إلهي دم بالناف لو ويديستك أغمضا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها من النهار موقنا بها انت قفك أخريب النبي عليه الصلاة والسلام سيد الاستغفار ما انت قفك أخريب انتهى بينك أهل جنه كم من نقنا كابينك أخريب ما انت انتنا أهل جنه كم من نقنا يا أبو رسول صلى الله عليه وسلم وحين جنك هلينين إلهي ayaynu dembi dhaaf ku weydiisanaynaa rabbi subxaanahu wa tacaala istighfaartu macnaheedu maaha marka aad dembi gasho oo qura laakiin adigoo digrigii dhammeeyey adigoo cibaadooyinkii u qiimaha badnaa dhammeeyey baad haddana istighfaartii la imanaysaa macnaheedu waxay muujinaysaa marnaba inaan carabka laga dhigin cibaadaabaad ka soo baxday istighfaartii baad ku xigsiinaysa ilaahay baa waxa uu xusay subxaanahu wa tacaala dadka muuminiinta isagoo la hadlaya xajka marka ay ku jiraan inay istighfaartii wadaan uma afiiduu min xayثu afaada annaas waاstagfiru اllah ina allaha gafuuru raxiim marka carafo ka soo noqotaan bartanka xajka ugu jirtaan ilaahay dembi dhaaf weydiista ilaahay baa dembiga dhaafo idin naxariisan doona sidoo kale waxaynu soo arkaynay marka rasuulku uu ka baxa salaada 3 jeer buu leeyahay astagfirullah 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 waayo addoonku inuu isqanciyo maaha oo uu yahay kii dadaalaya cibaadadiisa la aqbalay inuu yidhi diladaas
ay ku badata maaha rajo uu qabaya adoonku laakiin haddana isqacintu ma fiicna waa inaad mar walba dareensanaataa waxaanaad qabanayso in aqbalku wax ka noqon karo midda kale sidii u habboonayd ilaahay subxaana wa tacaala inaanad u caabudin baa laga yaabaa marka macnaheed waxa weeye wixii gafafiga dhaca ilaahayow inaanan ku weynayn baa laga yaabaa sidii aad mudnayde astaqfirullah ilaahu dembi dhaaf baan kaa weydiisanaya istikfaartu waxaa waajiba waqtiyay waajibtay waqtiyana waa sunni waqtiga qofkuu dembi galo waa waajib inuu ilaahay u noqdo subxaanahu wa tacaala waqtiyada ay sii wanaagsan tahay waxaa ka mid ah habeenkii gelinka dambe markaad salaatuleylka tukanayso iyo marka aad dhammayso labadaba saasuu ilaahay ku ammaanay awliyadiisa mu'miniinta ah alla yaqaanka cibaadaysanaya wabilasxaari hum yastakfiruun habeenkii gelinka dambe ilaahay dembi dhaaf weydiistaan والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله إلهي ومؤمنين تأمانا يا وحول مركي الدنب فالح سمعيان نفتو ذنا أي كحد قدبان إلهي بي حسان دنب دافنا ويديستا ومن يغفر الذنوب إلا الله دنبنا الدم دافع دار إلهي سبحانه وتعالى استغفارته وحي لا هاي فائدوين بضن faa'iido ka weynina ma jirto dembigaad la ildarnayd ama aynu la ordaynaynu la inkaarnayn inuu ilaahay naga reebo subxaanahu wa tacaala waa culays aan cid kale kaa reebayn ilaa rabbulciza ilaaha awoodda badan mooyaane addoonka mu'minka ah waxa ugu warwar badani waa dembigiisa waayo wixii kaleba dad baa laga yaabaa inay kaa caawiyaan xikmadahaynu u soo qaadanay maanta aynu mowduucan uga hadlaynayna waxaa ka mid ah faa'iidooyinka istikfaarta waxaa ka mida waa sababun linuzuuli almadar waalimdaadi biاlamwaali waalawlaad madarka aynu doonaynaynu tabayno ee aynu ilaahay martida uga nahay sababaha iyo miftaaxa lagu helo weeye shaygan la yidhaahdo istikfaartu waxaa kaloo ilaahay uu ku kordhiyaa dadka iyo duunyada wanaagsan ee aynu doonayno maxaad ka weyday markaa waa madarkii waa ubadkii waa adduunkii waa arsaaqadii nebi nuux calayhi salaam isagoo ilaahay la hadlaya una sheegaya oo warbixin ugu celinaya ummaddiisi inaanu waxba ka hakran laakiin wixii waajib ahaayee saarnaa uu gaadhsiiyey ayaa wuxuu idhi faqultu istakfiruu rabbakum innahu kaana ghafaara ummaddii ilaahayo waan la hadlay waxaan ku idhi ilaahay dembi dhaaf weydiista dembiguu aad u dhaafaa uu idinka dhaaf يرسل السماء عليكم مدرارا روبكي aad u badan buu idin shubi marka ilaahay u noqotaan ee ka baxdaan xumaanta wayumdidkum biamwaalin wa baniin waxaanu idinku xoojin doonaa oo idinku kordhin doonaa dad iyo duunyo wayaj'al lakum waliba baniin wa baniin wa wiilal bay dadku jeceliin adduun iyo inamo ayuu ilaahay idin siin doonaa ويجعل لكم أنهار ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا بيره يبيو اسكو قافلنا إلى هاي ويدسين دونا سبب لرفع البلاء الاستغفار بلايا ضدك هايسته نوعي دون تبهات وحلقوا علاجيا ودوده يدو أي تاي إن يددك دنبك أي قلان إلهي أقصر نقضان ربي وحول سبحانه وتعالى يسقى نبي محمد الله الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون إلى هاي مدا مع عذابيه انت استغفر الله واتوب اليه وقول وفعل وقلب له استغفار لما انت الا ايمان اياه الى هاي مع عذابيه عذابك كلا نوع الى هاي مدا وكدينيه علي بن ابي طالب وحوله ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبه dad yow haddii balaaya timaado iyo wax laga baqoo dhib badan dembi bay ku timi dembi buu ku yimi balaayadaa timi dembi bay ku timi waxaana ilaahay uu ku qaadaayo meesha kaga saaraa istikfaar iyo tawba abi muusa alashcari macnaha asxaabtu ridwaanullaahi calayhim sirtii nusuusta iyo sharcigay fahmeenoo xigmadaha ka soo burqanaya aqwaashoodii iyo hadalladoodii iyo weedhahoodii baa u egaaday daliiladii ka faa'iidaysigii daliilada kolkii ay badiyeen oo asal u noqday
أبي موسى الأشعري نوحى وليه كان لنا أمانان ذهب أحدهما وهو كون الرسول صلى الله عليه وسلم فينا وبقي الاستغفار فينا أو معنا فإن ذهب هلكنا. إلهي القرآن كدحديث آيات إن صوش إن لبا أمام بأمضة وقبلن قاضي لبا الرمود إنه كنا بدقلينيو مدي وحوي النبي قال إن دحجوعه وإلهي مع عذاب يبا ربي وأمضة أنت دحجوك النبي محمد مد كلبادنا وحوي إلهي مع عذاب أنت يدم بالله في إلهي ويدي سنة هذا الرسول كيوت تجيبه كلبادنا هتو تجوينه هلاك سمي وإنه استغفرت لونه وفائدة أي لا ذا هيبو حصيا استغفار تفايدون كي سوحة كامدة وسبب لنزول الرحمة نحريسينان مرنا وكمارمين ثم قطية معنوية با أي سببية إلهي باوحوري قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون رسول الله كامدة با أمدي سيوانين يوحوري ما محاودة دجسانيسان حمانت الذي هنا إلهي عذاب نقول كان هتورن شيء لولا تستغفرون الله ميا إلهي دم بداف ويدي ستان لعلكم ترحمون سلا يكون حريستم الاستغفار فإذا إنك سوحة كمذا وكفارة للمجلس هداد ميل فريستوت كعيسها إلاون إلهي إذا كما صلاة كنت كتد ما القرآن كو أخردد ما تكو ورددد ذكرك السلك علي ما شاءت كعيسو meel aad xumaan ku samaysay iska daa meeshii aad khayrka ku samaynaysay xataa iyo meesha cid ku sheekaysanayseen markaad kacaysa ha ilaawin nabi maxamed wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam man jalasa majlisan fakathura fihi lagatu فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان من مجلسه ذلك قفك أنتم مال فريستو هذا الكيس بطه أنتانو كعين هذا كذب مركانو أنتانو كعين كهر هذا إله هذا حمان كهفن أديك أيام هذا السكالة أشهد أن لا إله إلا أنت توحيدك كل واقع أستغفرك وأتوب إليك إله بدن بداف بنك ويديست وحي هراي قدع فيها وحي قدع وانكو صون نوضي هل كا وحي قدع والله صلابيا واسكي صده يصفين تلمريه ذنوب المجالس فايدوين كيسا وحا كمدا لتفريج الهموم وجلب الأرزاق والخروج من المضايق وهمك وعريرك وارساق الحمادة انت بإلهي باكو قادة سبحانه وتعالى نصوص بضباتات الماميسة وحا فايدوين كاستغفار تكمدا وكعريسين تشيطانك واحد شيطانك كغفر حين يسانوا معصيه يا دنبي وحكستو شيطانك كعريسين يانا وعباده رسول كوحري صلى الله عليه وسلم يقول الشيطان شيطانك وحي ولي إن شيطانك وحي ورنا وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم إلهي ارتسو كدارته وحلوينان تاذان كدارته waxaan ku dadaali doonaa ilmo bani aadam inaan haleeyo inta naftoodu jirkooda ku jirto saasuu ku dhaartay faqaala rabb tabaaraka wa tacaala ilaahayna laa azaalu aghfiru lahum ma astaghfaruunii aniguna ma dayn doono inaan u dembi dhaafo intay dembi dhaafi weydiisanayaan isagii ilaahay dhaabadaasaa u taalla marka addoonku hadduu istikfaar ilaahay weydiisto إلهي بوهيلي سبحانه وتعالى هديك لنا الشيطان كوهيلي مركا ولا ليال وحين كسو أرورينينا سعى ما يسخى صبا سدا سأنت أسو الدليل باكا ورمي موضوعا أوري الله باتن دليل بين الشاقنا استغفار إنه أمانية أو إنه قول الرجالينية أو فائدة دي سو إنه شاقي أو قرآنية نصوص إيا حديث الصحيحة بالي وحينو شاقي نارنتي وحينان آدو قبرارك سنين والله هذا قفكو إنه تكذو قرآن أخرين لكن أنتو استغفار لينا دعاني بدنانين وردقينا وحيابها مهم سن مجالس دعامية خاص كابا ينسكو حسوسين إنه ضدك ما تدي يوبتك أينو برينو وينو النوضع ورمتي آديات لو قد ذاله فرجك رمتي لها إنو كدونا ينسي أينو هلنو وحكرا رمتي حسد مضان يدد عادي يدقرق يدينتي لو وضح الضنا وين داق دينا لو قاعد عبادة دي كميدة
oo dadka durufaysan ee baadiyaha ku nool ama magaaladaba ah kuwa biyo la'aan ee ku dhacday kuwa baad la'aan ee haysaba waa in loo gurmadaa oo masaajidada iyo suuqa iyo goobaha ganacsigaba wax lagu ururiyaa gacan aaminana loo dhiibaa si miisaaman oo muhiimana loo qaybiyaa oo dadka baahan u gaadhaa sidaasaynu ilaahay kaga heli karaynaa naxariista markaynu isu naxariisano